ereyga la yidhaahdo MOU goor baa la dhammaynaya alxamdulilah dadkeenu siday arrintaa u taageersan yihiin iyo siday mustaqbalkooda u doonayaan inay mar uun ictiraafka dowladda horeysa wax kasta aanu kala goosanee ay timaado malaha saacaddiiba intaas telefon baa lagu weydiiya arrintaasi waxay maraysaa oo idinma aragtaan in labada dhinacba Ethiopia iyo Soomaaliyaadba ay ka go'an tahay in agreementka la saxeexo oo MOU-ga loo bedelo xeer oo howlgalo hadda muxuu qabanayaa baa inaga waxba dhulka nagama yaalaa aroorta hadday qolada kala diyaar tahay inay wada diyaar bayno waa dal ballaaran dhibaatooyin badan buu leeyahay waxyaalo badan go-aanyada ku abshira inaan kaasi ka noqnoqosho iyo saxsaxad ahayn xasan sheekhna hadalkiisa waa ka arkaysay laakiin waqtiga la qabanayo waxaan sugnaa u waafarintii ahayd waqtiga aan soo nimaadno taasina insha allah degdeg way iman doonta qodobka ugu dambeeya waxa weeye sanadkan waa sanad doorasho waxay ila tahay haddii aynaan doorashadu marka horena qofka la dooranayo loo eegin taro muxuu inoo qaban karaa ee loo eego imika waxyaalaha ku cusub eedda Soomaaliya wada qaaday inuu qoro maahe dowladdii waxaa la doonaya in lagu dhiso hab sidii qaaraanka oo kale oo la yidhaahdo baarlamaanka la doorto oo aragti dheer leh oo dowlad dhisi kara ilaa waa guddi dowlad ku in la soo doorto baahay laakiin waxa maxaa dhaca marka la geeyo waxa dadka laga qayb galiyo dadku waxay yaqaanaan laga qayb galiyo haddii qof imika halkaa uu xanuunsanayo oo la yidhaahdo dee waa dhakhtar meena dee aynu dee u tashana ninka oo reer hebel u dhamaaday si loo waxa la sii doono deetana la yidhaha qalliin buu baahay dee haddii la yidhaha reer hebel shalay bay qaleen maanta ninka hala qalo dee maxaad unu marin ma caafimaad ma kacaya wuxuu galay markaa xilkii la doonay in la yidhaahdo maanta reer hebel baa u leh kaa shalay hore reer qurac baa qaatay beritana reer qurac baa maanta qaadanaya deetana reer hebel waaye waa sax dadka soo wada mara dowladda isugu yimaado waa dhab xuquuq baa loo wada leeyahay laakiin de reer hebel ka keeno qof waxa yaqaana ila shaqo waliba waa gaare dhibaatadan haystaa waxa weeye waa inoogi tasaasi dowladda ku socon mayso qof waliba wuxuu yaqaano qof haysa loogu dooro tukala bikana soo baxday oo ilaa halka u hooseysa dowladda hoose kuwa loo dooranaya waa la isqaybin waxa leeyahay haddaynu nahay reer hebel ma jiraayo sanadkani waa kaayagii ilaa madaxweynaha dee miyaanay ka wanaagsaneyn haba lagu heshiiyo in cid waliba dee xil ka rabta inay meel u xidhaato maaha in tira ahaanna cid wax ku qaadata maaha inay dhaqaale ahaan wax ku qaadata maaha oo dadka tala ka yarata laakiin waxaa ka horeeya dee yaa hawshaa qaban kara oo garanaya taana waxaan leeyahay doorashada bal horta marka dadka soo xulayo iyo cidda la dooranaya haynaga hubsato ha dhowta inaynaan fardhex ka qarinin oo marba la odhan waa kale oo kii kale marka intaa la yidhaha waxaan leeyahay dowladda dadaal adag bay u gashay inay doorashada socoto culayskeeday leedahay ku dhaqaalay leedahay ku nabadgeliyay leedahay ku dulqaad bay leedahay intaaba anagu dhexdaan u xidhannahay waayo xukuumad ahaan waxaanu go-aaminay oo dadkii ciddii aanu la tashanay dan moodaynayna aanu kala tashanay oo kuwa taageero la isku raacsan yahay in aynu doorashada xag alle mooye waktigeeda ku qabanno doorashadana waxaynu qaban karaynaa marka dadka u tartamaya ee xisbiya doorashada xisbi ama ururka u tartamaya markay daacad ka yihiin inay doorashada qabtaan laakiin inaanay noqonin hashii geela cuntee cabaadee doorasho ha la qabto haddana doorasho lagu tarhaynaya wax walba waan daahinayaa dhici mayso tusaale si aynu u kala nabad galno oo musuq looga cararo oo cid bay khiyaamaysay iyo dowladda sanduuq iga boobtay iyo halkale wax ka dhacay aan uga baxsano waxaynu kharash 5 milyan oo dhow gelinay in isha bu'deeda la sawiro qof ka soo codeynaya xisbiyada macaalka qaar baa ka qayliyay oo inaad haddaanu nidhi xalaal iftiin aan qalanno oo waxaan ku marnaa inuu ka baxno oo durba ka qaylisoo daadahay yeeli mayno oo kaaga daranta aayar anigana ii sheegi maysid ma tashanaan baysa adduunka waraaqa u qorisoo daadahay waa lagu daahinayaa in lagu baaba la doonayaa
waar isha bowdeeda qofka hala saaro waa loo siman yahay ninka maanta dabada qayb wareejinaya haddana mucaarad baan doorasho qaba ilahow maxaa doonaysaa bal ii sheeg taa meel u kala baxaya waa la qabanayaa si sharciya loo qabanayaa isha bowdeeda in la sawiraa sharciga doorashooyinkay ku qorantay xukuumaddaa la faray inay fuliso si dadku aanay isu arag sharci doorashada haddii aad hortaagada adaa cirka roog ku og anigu sharciga waa fulinayna haddaan xukuumadda nahay dhaqaalahana wax kasta anu kacana waa fulinayna taana waa intaa nabadgelyaha lagu codeeyo sharciyada doorashada loo hoggaansamo dee cayda iyo buuqana ninkii caydee ninka afkiisa ku saaray ninka waayeelahe fagaaro ka caytama ama suldaan ahaw ama caaqil ahaw ama siyaasi ahaw ninkii fagaaro ka caytamo ee cid ka maaga ee hadal qadafa yidhaahdo if akhraba adeeg ku dul taalla markaa laakiin dee walaalayaal laysturana meeshu ib waa la yidhahdaa aynu soo turno waxaa la yidhi beri waa buuq waa jiray berihii intii jabhadihii iyo markii la wareysanaayo xabad baa dhacdee war xabad baa dhacaysa xagga masaajidka inoo eri buuri kulaasuu sheekhu masaajidka ka dhacaysa xaggee loo carara waar dhaqan xumadii iyo af xumadii iyo intii lalahaa waar dadka u kaadiya hadday kuwii dhaqanka loo ijaartay aanay afkoodii waxba ku dhaafaynin sidee la yeelaya xaggee lagu cararaa dhaqanka yaa saxaya madax dhaqameedkii haddii looga taagi laayahay wixii ciyaar suqu ku hadlayay miyaan mar subxaan allahi xaggee dee dhaqankii bal ka warraba markuu suldaan soo taag leeyahay intaa iyo reerkooda iyo intuu yaaba allaha cadaabo waana suldaan umadeed ka war suldaan ugu sheeganaya marka maxaa la samaynayaa ki yaraana muxuu samaynaya marka inanka yaraa soo waxaa baran maayo soo ku eegan maayo markuu madax dhaqameedka ku hadlayo waxaan afka ula soo marin karo habaryari wax ka sheegayo maxay noqonaysaa marka waxaan leeyahay dee haddii magaca madax dhaqameedka dadka lagu caayayo waa cibaaro soo baxday waa inta caytanta inta wanaagsan taa kuma lihi aad iyo aad waa mahadsiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu